haweeney beeraley ayaa ku guulaystay inay geed midhoodyadii beerteeda ku yaalay ay ka badbaadiso inay qalalaan. boqolaalo beerood oo ku yaala duleedka magaalada Laascaanood ayay abaartu qalajisay kadib markii ilihii biyaha oo ahaa ceelal iyo durdurka waqdari oo waraab ahaan ay ku tiirsanaayeen beerahaasi ay qalaleen. beerahan oo inta badan qudaarta kasoo go'da magaalada laga isticmaali jiray loona dhoofin jiray magaalooyin ay Garowe ka mid tahay ayaa dadkii tacab ahaan beeraha ku tiirsanaa waxay ka mid noqdeen dadka ku barakacay deegaano ku yaala gobolka Sool oo ay hore halkaas ugu barakaceen dadkii xooluhu abaartu ka dhamaysay. taa bedelkeeda waxaa jira dad beerihii ay lahaayeen ku guulaystay inay samata bixiyaan. Farxiye Aadan Maxamed waa hooyo leh 8 caruur ah waana 35 sano jir waxayna ka mid tahay iyadii odaygeedu beeraleyda deegaanka Oodagooye oo koonfur bari ka xigta Laascaanood 6 kiiloomitir. deegaankaasi waxaa ku yaala beero ka badan 50 waxaana ka hadhay beerta Farxiye oo kaliya oo cabirkeedu yahay 5 hektar iyo badh oo ay ku yaaliin geed midhoodyo gaadhaya 70 oo 20 ka mid ay yihiin saytuun 50 kalena liindhanaan. isnaantii ka mas'uulka ahayd beertan aad iyo aad ayaan beertan aad caqabado weyn ay soo mareen. caqabadaha waxaa ka mid ahaa ceelashii oo aad iyo aad abaar fara badan oo baahday ay muddo badan soo noqonaysay isla iyo markaana ay beertaasi ay noqotay in aan wax kasta oo aan raadin karo raadiyo ay noqotay in aan biyo xitaa beertii inaad badbaadiso baad ugu talagashay badbaadiyo markaa oo aan raadiyo inaan ku waraabiyo booyad ku waraabiyo isla markaana ay booyadii hadda muddo 3 bilood ah ay ku baxsatay booyadaas beertaana waxaa ka baxa dalag aad u fara badan oo kala nooca sida liin dhanaanta oo kale saytuunka xamarta yaanyada basasha babayga isagoo aan tayo aad u sii ballaaran lahayn mooska. 3 bilood waxay ku baxaysay dayn fara badan ayaa laga gelaya. caqabadaasina waxaa keenay dhulkii oo abaari ka daashay oo ay ceelashii dawreen halkaana aan ku badbaadinay. ilaah baa wax badbaadiye booyadda. waan gartay tusaale ahaan oo kale bishii biyaha booyadda waxaad ii sheegtay inaad meel ugu shubtid oo kale deynta bishii biyaha booyadda aad ku shubtaan beertan oo kale imsay gaadhaysaa walaale marka shaqaalaheeda raashinkeeda biyaheeda waxaba la isku celceliyo 1400 baa gasha bishii gasha. waan gartay muddo 3 bilood hawshan waday 3 bilood ayaan hawsha wadnay. ilaahay baan ka sugaynaa sidii aan uga caqabada adag uga bixinahay. Farxiye Aadan Maxamed waxaan weydiiyay waxyaabaha ku idbaaray inay beerteeda badbaadiso maadaama deegaanka Oodagooye ay deganaayeen dad badan oo beeraley ah kadibna markii ay u waayeen beerihii waxay ku waraabiyaan ay deegaankaasi isaga carareen. waxayna ii sheegtay inay tahay sababta ugu badan ee ku kaliftay inay beerta badbaadiso. beerta oo ay ku yaaliin geed midhoodyo badan taana ay ka samri kari weyday maadaama ay ka dhaxashay beerta hooyadeed oo dhimatay 3 sano ka hor. waxay ugu dhalatay markii aan geed weyn bay u badan tahay beertani inaan la tacaalo ilaahay xaggiisa iyo hay'adaha samafalka laga helo deeq bixiyaasha ayaan isli kolleyba maxay hayto inaad dabar adeegtaa inaad deyn raadisaa inaad beerta la tacaashaa waa muhiim. sidaa la ajigeed ayaan 3 bilood waxaan ugu dabar adeegay in aan ku waraabiyo lacagta deynta iyo booyadda. markii hore bal ka waran miyaysan jirin raasamaal aad beertan ka dhigteen? beerta raasamaalkeeda wax badan baan ku soo wadnay. hadeer abaartani waxay haysay 3 sano intaaba raasamaalkeedii iyo maaragtay wixii ay hore meel ugu yaalay ayay ku soo mooday 3 bilood wixii ka horeeyay. Xamdi Maxamed Guureeye waa hooyo 26 sano jir ah waxayna leedahay 6 caruur ah waana markii ugu horeysay ee deegaankeeda ay weligeed ka barakacdo. waxayna deganeyd deegaanka Oodagooye oo ay ku lahayd beer cabirkeedu yahay 2 hektar iyo badh waxayna beeraley ahayd muddo gaadhaysa 5 sano. waxayna ii sheegtay in qudaarta beerta uga soo gooyi jirtay ay ka mid ahayd basal, yaanyo, karooto iyo basbaas ayna magaalada u iibgeyn jirtay keena heli jirtay nolosha caruurteeda. Xamdi Maxamed Guureeye. Xamdi bal iga maxaad haystay markii hore abaarta ka hor? waxaan haystay yaro aadhiya. imisa aadhiya? waxaan da kontomeeya neef aadhiya iyo yaro beero de markay beertiina biyo basho iska qalash. beeraley xoololey baad ahayd markaa. waan gartay xagee deganeed? waxaan deganaa beerahan Oodagooye. waan gartay marka intee leeg bad beeraley ahayd?
waxaan beeralay hadda in yar beeralay maanay muddo badan baan beeralay intee sano aduu ilaa 4 sano ilaa 5 sano waan gartay beertii maxaa ku dhacay beerta waxa ku dhacay biyo la'aan iyo haraad bay la qalash waan gartay saas yaa kugu yaalay maxaa kamid ahaa liin dhanaan markii xeerkii ka dawray waa qalash waan gartay qudaarta kale ee beerta ku taalay maxaa kamid ahaa yaanyo iyo kosta iyo waxa cagaarka adigu waan gartay intee caruuraad leedahay caruurteedu waa 6 waan gartay yaani aabahood caruurta aabahood meey aabahood gaari baa jooga guriga yaalo jajabay xagu ka jabay luga gaari baa jooray markaa goorma wuxuu jiray hadeer 2 bilood guriga yaala caruuraan la yaani aabahood 6 caruurta ahayd maxay ku nool yihiin iminka deer saaqad ilaahay bay ku nool yihiin qaxoontigaas aanu ku biirnay dhuxumeed qaxoontigaad ku biirtay markii beertii qalashay intii arigaadna ku dhaaftay deeha waxba waayay kabacdina qaxoontigii maxaad kala kulantay waxba kama helin wali waa iska sii socdaa muddo intee leeg baad qaxoontiga joogtay muddo hadeerta wallahi dhowr cishaaba mar bug sii socdi dee waxna kama helin marka sidaad ii sheegtay dadka degan deegaanka lagu soo barakacay ee dhuxun ayaa ku kaalmeeya dadkaas ay kaalmeeya ma dadkaas aad ay kaalmeeyo xooga ay siiya raashina marka iyagu wax qaataan bay wax siiyaan farxiya waxay intaasi ku dartay in dad badan oo aaga odagooyo deganaa oo beeraley ah ay iminka ku dambeeyaan deegaanada lagu barakacay oo ku yaala gobolka Sool ayna ku biireen dadkii xooluhu ka dhamaadeen ee deegaanadaasi deganaa waxaana aan weydiiyey deegaanada dadkaasi ay u barakaceen waxa weeye dadkii haystay way iskaga markay caqabadaas abaartu keentay way iskaga guureen waxayna tageen xiriyaha qaxootiyada xoolihii dadkii ay ka dhamaadeen xiriyaha loo fidiyay sida tukaraq oo kale ama meel la yiraahdo dhuxun ama meel la yiraahdo ari cadeeyo oo kale meelo badan oo lagu furay dadkii xoolo waayay ayay beeraleydiina aadeen waqtigan ay ku sugan yihiin